maanta farxad weyn ayay ii tahay inaan imaado magaalada taariikhiga ah ee xadaarada leh ee ilbaxnimada ka soo jeedo waa Baraawe oo ah caasimadii koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed muddo ayaan ku taamayay inaan halkaan imaado hal sano iyo waxay ugu qaadatay bilooyin laakiin maanta ayay qorneed inaan imaado waa ku faraxsanahay waa magaaladii loo diyaariyey doorashooyinka koonfur galbeed inay halkan ka dhacaan sababaha halkan u imid waxaa ugu horeeya inaan booqdo goobaha ay doorashooyinka ka dhacayso deegaanada cisbitaalka degmada Baraawe iyo dhammaan shacabka ku nool degmada Baraawe inaan indhahayga ku soo arko duruufaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin si kale haddaan u dhigo magaalo duruufaysan aan sugay laakiin magaalo nuurayso qurux badan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ziyaadiyo madaxweynahana waxaan ka codsanayaa inay qorshe la yimaadaan magaaladan loogu soo guurayo anigana aan ka kow ahay dhulka ugu horreeyana lai raadiyo diyaar ayaan u ahay inaan usoo guuro waxaan rabnaa inaan geyno deeq daawooyin wasiiradda caafimaadka ee federaalka ayaa la socota wasiirad Fawziya inaan gaarsiino isbitaalka daawooyin waxaan kaloo rabaa maanta inaan ugu bishaareeyo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen in maalin dhaweed aan tagnay dalkaas Masar waxyaabaha u tagnayna ay ka mid ahayd waxbarasho in laga soo helo deeq waxbarashana waa wadnaa madaxweynaha ayaana kala tashanaynaa oo degmada Baraawe in la siiyo hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waad u jeedaan doorashadii waa bilow ha loo diyaar garoobo dagaalada ha laga waantoobo isqabqabsiga ha la iska daayo dalkan waa uu naga badan yahay aan doorasho galno waddanka hore u socdo sidoo kale waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursaddan maanta in dad Soomaaliyeed laga soo celiyo laascaanood dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiil iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool laascaanood maanta la yiraahdo ka guura koonfur ka timaadeen waa ayaan daro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka Soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa uu naga badan yahay dalkan magaca Soomaali ayaa lagu leeyahay cid Soomaali kale ka xigta ma jirto insha Allah ceebtaas inaan iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer laascaanood waa mahadsantihiin waxaan leeyahay mar kale iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin shacabka ku nool degmada Baraawe madaxdooda wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh